markhaatiga carabka laa. Asalaamu calaykum saaxiibayaal, waxaan idinla wadaagayaa qisal ayaan badan. Fadlan haddii aad nagu cusub tahay channelka subscribe saar, muuqaalka like garee. Mahadsanid. Magaalo kasta waxa ay leedahay dhaqan lagu yaqaan, laakiin magaaladan xaaladeedu waa ay ka duwan tahay. Waxa ay ahayd meel ay beentu noqotay badeecada ugu raqiisan, runtana ay tahay wax dhif iyo naadir ah. Dadku waxay isku aamineen beenta ilaa ay xaqiiqadii luntay. Maanta waxaan idin hayaa qiso yaab leh oo dhex martay nin aan balan lahayn iyo gabadh xaqeedii la duudsiiyey, iyo markhaatigii carabka laa ee runta fashiliyey. Nin magaaladaas degan ayaa mehersaday gabadh, waliba meherka loo yaqaano khudbasirada. Waxa uu dejiyey guri gaar ah oo ka fog indhaha dadka. Muddo markii ay wada joogeen, ninkii ayaa isbedelay. Isagoo isku kalsoon inuusan jirin qof og xiriirkooda ayuu yidhi, maanta kadib xaasnimateed gabadh aan aqoon u lahayn ayaad ba ii tahay, wax xuquuq ah niguma lihid. Gabadhii oo naxdin iyo qoomamo ay wejigeeda ka muuqata ayaa tiri, sidee ku dhici kartaa? Markhaatiyaashiina meheriye way nool yihiin, xaqa aan kugu leeyahayna ma lumin kartid. Ninkii ayaa isagoo qoslaya ugu jawaabay, wax xuquuq ah iguma lihid, geedkaad gaarta mira ka gooso. Gabadhii waxa ay tagtay maxkamad. Waxa ay hor istaagtay qaadi ku suntan deganaansho iyo caqli badni. Waa ay u warantay qaadigii, iyadoo u sheegtay in nin qabay uu inkiray ayada iyo xuquuqdeediiba. Laba markhaatina ay goobjoog ahaayeen maalintii la mehersanayay. Qaadigii ayaa u yeeray ninkii iyo labadii markhaatiba. Markii la weydiiyey ninkii wuxuu yidhi, qaadiyow, gabadhan weligii ma arag, gurigaygana ma soo gelin. Labadii markhaati ee la isku haleynayay waxay yidhaahdeen, anaguna ma naqaan gabadhan, ninkana weligiis meherkiisa qayb kama noqon. Gabadhii dunida ayaa ku yaraatay. Waxay ogaatay in beentii magaalada ay maanta xaqeedii ku waayeyso. Qaadigu ma uusan ahayn si fudud loo degi karo. Waxa uu eegay indhaha ninka. Waxa uu dareemay in wax qarsoon ay jiraan. Qaadiga ayaa gabadhii u yeeray, wuxuuna ku yidhi, gabadhii ahay, dadkii waa ay ku inkireen, laakiin diyaar ma u tahay in aan garsoore ka dhiga makhluuq aan carab lahayn oo gurigiina ku nool? Gabadhii ayaa tiri, haa, waan ku qanacsanahay. Qaadiga ayaa amar ku bixiyey, habeen midow gabadhan hal la geeyo guriga ay ninka kula dhaqmi jirtay. Haddii eyga guriga jooga uu qayliyo oo uu arko qof cusub, gabadha ayaa been sheegaysa. Laakiin haddii uu eyga soo dhaweeyo, gabadha waa run sheeg, ninkuna waa khiyaanalow. Xilli habeen ah, askartu waxay gabadhii geeyeen gurigii. Markii ay yirida ka gashay, eyga guriga waardiyaha ka ahaa ma uusan qaylinin. Taas beddelkeeda waxa uu u orday xaggeeda isagoo faraxsan, isagoo aqoonsaday gacantii quudin jirtay. Si shaki kasta meesha looga saaro, waxaa guriga la geliyey gabar kale oo aan weligeed arag. Eygii ayaa markiiba xanaaqay, qayliyey, iskuna dayay inuu weeraro. Eygii ayaa sidaas horta u kala cadeeyey, oo waxa uu noqday markhaati fura xujadii adkeed ee qaadiga hor taallay. Intaas kadib, maalintii xigtay, maxkamaddii waxa ay noqotay meel cayb iyo yaxyax ka jiro. Ninkii iyo markhaatiyadii beenta ahaa waxa ay noqdeen kuwa wejiyadooda madoobaaday. Qaadigii ayaa yidhi, eygu wuxuu gartay cidda ay tahay, idinkuna waxaad iska indhatirteen xaqiiqadii. Gabadhii sidaas ayay ku heshay xuquuqdeedii. Nuxurka sheekadeenna, noloshu waa qiso iyo cashir. Inkastoo ay beentu xawaaro ku socoto, runtu mar walba waxa ay leedahay jid ay ku soo baxdo. Haddii aad ka heshay sheekadan, fadlan nagu soo biiro subscribe saar channelka. Mahadsanid.